بسم الله الرحمن الرحيم وحان أهي جامع أحمد إله وحان تعسيرين يا محمد قادي محمود oo mitir ku magac dheeraa mitir qaadi baa la oran jiray ilaahayna hay janaasiyo anigu waxaan ahay saaxiib gaar ah ayaanu ahayn sida awgeed aad baan ugu ducaynayaa waxaan leeyahay ilaahayna xadiistii janaasiyo wixii uu ka tagay ee walaal iyo ehliyana sabriya ma ka siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun halkan waxaan tacsi u dirayaa maxamuud qaadi oo ku magac dheer mijir qaadi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo waa la wada dhimanayaa waxaan tacsi u dirayaa ehelkiisii iyo qaraabadiisiiba in ilaahay samir naga wada siiyo aamiin baan u leenahay bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim allahumma salli calaa maxamed anigoo ah yuusuf daroor muuse oo jooga shafiil waxaan tacsi u dirayaa marxuumkii allaha u naxariistay mijir qaadi ilaahay jannadii ha geeyo ehelkiisiina ilaahay samiriya iimaan giddigaya ha naga wada siiyo wuxuu ahaa nin weyn oo naga baxay nafta la heli maayo ilaahay ha u naxariisto annana ha nooga daba naxariisto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin anigoo ah cabdiraxmaan jaamac maxamed waxaan halkan uga dirayaa tacsi tiiraanyale ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye mujaahid maxamed maxamuud axmed oo loo yaqaano mijir qaadi maxamuud innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maxamed maxamuud axmed oo loo yaqaan mijir qaadi maxamuud ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay jannata firdowso ka waraabiyo in ilaahay muftaaxa jannadeeda gacanta midigta uga dhiibo iyo kitaabkiisa ilaahay waxaan ka baryayaa oo aad uga baryayaa ilaahay inuu ilaahay nin odaya buu ahaa nin buu ahaa runtii xigmaawiya nin buu ahaa dalka iyo somalilan la yidhaahdo ilaa lixdankii ilaa maanta ku leh taariikh maguurta'a wuxuu ahaa mujaahid halgamaaya wuxuu ahaa ninkii uu soo halgamay ilaa lixdankii wariyayaashii ugu firfircoonaa somalilan ilaacaddii ugu horraysay ee somalilan laga furo ee hargeysa inamadii loo qaatay wariyayaashaha ka mid ahaa nin buu ahaa shiikha oo shiikh dhalay nin buu ahaa runtii dadka si fiican u daadihiye ilaahay jannadii ha ka waraabiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun isaga iyo somalilan oo dhan iyo intii uu dhalay iyo intuu la dhashay reer qaadi maxamuudba ilaahay samir iyo iimaana ka siiyo bismillaahi araxmaani araxiim ilaahay subxaanahu wa tacaalaa marxuumkaa dhintay waxaynu uga baryaynaa asmaadiisa iyo sifadiisa iyo juudkiisa iyo karamkiisa 99 magaca ilaahay barakadooda inuu jannatulfirdowsa ka waraabiyo subxaanahu wa tacaalaa ehelkii iyo giddigeen iyo awlaaddiisa iyo arruurtiisa iyo reerkiisiina samir iyo iimaan saadiqa ilaahay ka siiyo waxaanu ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaalaa inuu naxariistiisa subxaanahu wa tacaala ugu tafadulo dalka iyo dadkaba waxa weeyaan nin magaca leh oo ka baxay buu ahaa mijir qaadi maxamuud waa la wada garanayaa badankiisu dadka ninkii somalilan joogay iyo ninkii meel kaleba badankiisu wuu garanayaan ilaahay waxaanu uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala sumcaddu ku lahaa dhulka mid ka wanaagsan aakhira ku yeesho innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdidaahir qodax waxaan halkan tacsi tiiraanyale uga dirayaa halyeyga weyn ee dhintay maxamed maxamuud qaadi oo ku magac dheeraa mijir qaadi waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannadulfirdowsa ha geeyo ilaaha raxmaanka kitaabkiisa midigta ha uga dhiibo wuxuu ahaa nin halgamaaya nin taariikh dalka ku leh qoys qaaliya ka soo jeeda wax badan dadka u soo qabtay muddo badan aanu isnaqaanay saaxiibbo isku dheer aanu ahayn waxaan leeyahay ilaahay jannadulfirdowsa ha ka waraabiyo dhammaan ehelka qaraabada somalilan oo dhan waan ka tacsiyadaynayaa waxaan si gaara u tacsiyadaynayaa inamadiisii iyo dhammaan reer qaadi maxamuudba si gaarana waxaan u tacsiyadaynayaa cali mijir qaadi iyo mustafa mijir qaadi waxaan leeyahay samir iyo iimaan saadiqa ilaahay naga siiyo ilaahayna naxariistii jannaha ka waraabiyo
nin taariikh ku leh buu ahaa dalka ururkii SNM ka mid ahaa idaacaddii ka soo shaqeeyey ma garanaysaa qaranka halgan u soo galay dadkan iyo xorriyaddan iyo nimcadan ay maanta haystaan ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ilaahay jannatul firdawsa uu gurigiisa ka dhigo dhammaanteenna waxaan leeyahay samir iyo iimaan saadiqa ilaahay haynaga siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan u taxsiidaynaynaa ninka leeda maxamuud qaadi sheekh maxamuud qaadi qaadi maxamuud maxamed qaadi maxamuud magaciisa asliga ahay marxuumka wuxuu ahaa maxamed mijir dee waa naanays waxaanu leenahay ilaahay ha u naxariisto isaga iyo ummadda nebi maxamedba ilaahay qabriga ha u waasiciyo kullu nafsin bidaaqat almowt qof kasta oo ilaahay abuuray badda wuu dhimanaya adoo haddii cid la daynayo dee ilaahay nebi maxamed buu dayn lahaa oo uu caalamka ka aftalay isagana wakhtigiisii baa dee maanta ku ekaa sidaa ayuun baannu haddii badankeeda leeyahay annaguna wax kale looma baahna oo looma tari kare dee ducuun buu u baahan yahay in loo duceeyo uun marka waxaanu leeyahay ilaahay ha u naxariisto isaga iyo ummaddii nebi maxamed oo dhanba sidaa iyo horta marka hore maxamed maxamuud qaadi allah yarxamo baan leeyahay ilaahay naxariisana ha ka waraabsho waxaan uga taxsiidanaya dhammaan eheliyadiisii carruurtiisii haddii alabeydinka xaasaskiisii iyo dhammaan intii ehel lahayd oo dhan waxaan kaloo uga taxsiidanaya ummadda somalilan dhammaanteedba waan uga taxsiidanaya iyadana sidaas i leeg assalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu asalaamu calaykum anoo maxamed xiis bacaluula waxaan tacsi u dirayaa mijir qaadi maxamuud allah raxma raaximiin eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoobay allah samiriyo iimaan ilaahay ha ka siiyo ilaahay samiriyo iimaan ha ka siiyo nin qaaliyuu ahaa nin abwaanuu ahaa nin wadaada buu ahaa nin sheekha buu ahaa ilaahay dhammaan samiriyo iimaan haynaga wada siiyo innagoo dhan ummadoo dhan somalilan oo dhan ha ka siiyo nin qaali somalilan ku ahaa buu ahaa ilaahay samiriyo iimaan somalilan ha ka siiyo raxmaani raxiim cabdu billaahi min ashaydaani rajiim anigoo ah cabdilaahi jirdagooye waxaan halkan uga tacsiyadaynaynaa mijir qaadi allah u naxariiste waxaanu leenahay kulli nafsi daaqatilmowd ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannadii firdowsa ha ka waraabiyo ilaahay wuxuu dembi lahaa ha ka maydho dadku dee sidaasunbuu isugu xigaayo u shubmaya ilaahay ha laga boqo hana la isa saamaxo marxuumkaa dhintayna ha loo duceeyo intaasaanu ku soo gabagabaynaya bismillaahi araxmaani araxiim annaga oo shacabka somalilan ee deggan magaalada shafiila tacsiyad ballaadhan ayaannu u diraynaa ninkaa mujaahidka ahaa ee ahaa haddee weriyaa mar ahaa ee mar arrimaha somalilan oo dhan ninkii ka wakiilahaa iyo nimankii ka wakiilahaaba ku jiray marka waxaannu leenahay ilaahayow u naxariiso isaga iyo wixii muslimiinta oo dhanba iyo weliba wixii dadkii reer somalilan ah ee mujaahidiintiiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah wasala allahu calaa sayidina muxamed halka kan waxaan ka tacsiyadaynayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi qaranka mijir qaadi waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo isaga wixii ma garanaysaa qaranka iyo eheliyaddii uu ka tegey iyo reer qaadi maxamuud oo dhanna ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo sidaasaan ilaahay uga baryaynaa wasala allahu calaa sayidina muxamed innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo waxaan tacsi tiiraanyo le halkan uga dirayaa walaalkay maxamed maxamuud axmed oo ku geeriyooday magaalada burco waxaan tacsiyadaynayaa dhammaanba reer maxamuud axmed walaalkay mijir qaadi ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo eheladaa uu ka baxayaan magacaabayna samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo dhammaanba kulligeedna samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo somalilan oo dhan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun rabbi naxariistii janno ha geeyo dadka muslimiinta ah oo dhanna ilaahay ha wada naxariisto بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون هل كان مانت وحن تعسيتي رايا لو قدر يا
guud ahaan qaranka Somaliland waxaan uga tacsiyadeynayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi Mijir Qaadi Allah yarxamo raaximiin oo runtii ah qof taariikh ku leh geyigeena Somaliland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba wuxuu ahaa suxufi caan ah wuxuu ahaa gaar ahaan magaalada yadan Sheffield annagoo runtii tiiraayo muujinayna tacsida naxdinta leh nagu timi waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga rajeynaynaa inuu Ilaahay qabriga u nuuro jannada firdaws a'la geeyo gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumkaasi samriye iimaan saadiq alla ka siiyo qaranka Soomaaliland Ilaahay subxaanahu wa ta'aala bedelkiisa sanna siiyo suxufi taariikh labo ahaa taariikhdiisa halka kuma soo koobi karo runtii waa haliyay qaran oo inaga baxay intii naga dhimatay guud ahaan Allah u naxariisto waa raggii idaacadda Hargeysa raadi Hargeysa lagu bilaabay suxufi caana dadkiisa wax badan u soo qabtay taariikh badan leh ayuu ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ma dhinta waa Ilaahay tacsiban idin soo wada diray adduunka meel kasta joogtaan waa Farduus Cismaan Hamashool oo la samriye iimaan Allah inaga siiyo saadaqa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh